هوي حواي هوي كالي هوي أديك تكذا إنه قصة حاج هوي واحد كليلة هوي هدوء بكسي كرولاني مكاليري 4 ساعات أي نايش يرى كل حجتنا حد كان كفر ما يمال يركض له حدا كحله هوي يعني صباح هنا أديك تكذا إنه قصة حاج أيوه قصة حاج هو بسم الله الرحمن فدايا بسم الله الرحمن إنما دي نشكان كلنا أنا بدي أحب نقول نعين كيف يجي بوح كلام نصور ورينا هوي حواي دي علي هوي يعني صابحين وحروبي دابك ku celiyo waxaan ku waxa yarnay naga xishid talo suldaanki maanta uu raagay talo maxaa ku dhacay ya odaygii maxaa ku dhacay suldaanki xawaay hooyo aabaha maanta maxaa ku dhacay hooyo aaba mooji wax ku dhacay soo raagay ya hooyo mooji wax ku dhacay soo raagay shaahi ma dinoo karisay waa ma kan bal soo warama waan fiican xaaji sideeta caafimaad maanta waxaan ifsidi xaajigi maxaa ku dhacay aaba soo raagtay maanta waan soo ragaa xanuun kaloora leedaa oo kulul baa soo baxay aaba karoona waa xanuun la garan waayay aan dawo loo helin dadka oo dhan caalamka oo dhan soo maray marka awaamir ba ka soo baxday waxa laga ama awaamir ba soo baxday awaamirta oo ah horta cudurkan wuxuu ka dhacay China wuxuuna imanayaa macnaha cid raashin soo dhoofayo ayuu soo raacaya waxaanu soo dhoofayo weeyaan marka maadaama inagu miyiginahay raashin nooma soo dhoofo wixii dhanba beertay waxaan ku beereen ka soo baxaa maadaama ay saa tahay caanihii horta waa la mamnuucay magaalada iska xayrana magaalada inoo baahan maanta inagu ma baahnin maadaama ay saa tahay shir baa loo qabanayaa dadka waa la wacyi gelinayaa adiguna dadkan caana ku keenaya islaam walba qalka ku cishade anaga beesha isku yeedhi marka xanuunkaasi waxa laga badbaadiyo kaliya in la magaaladan iska xidhno bismillah oo magaaladii warkeedu waxa gurigu way noo baxaya caani waynu haysanaa kaliya milix baan uga baahanay inagu magaalo wax kale oo uga baahanahay ma jirto ya حركنا ولا قلت إنه البدر كأنتوا هايستو أيوه كواتكانيا وعاني ولا ممنوع يا حبيبي عاني ولا ممنوع يا وحنو بهنا وملح وكلير ملح أنا هالمربان بيمين وقاعد نوصل ري بس مركا وح كلون مقالوا بهنا ما جرتوا أبناء مركا وش معناه إن إسلامنا عاني هيجي يبكيني يا عرورنا إن حاجة يرى نقابح ويا حاج حضو المهد وما تهلك في مقالاتكم ولا تكوريا ما ينوما يمنيا بقى ورمجال دمانيا مقالة دمانسا أيوة دمانيا بسم الله يا أبو عذر كان سيفا لو قبت بداية عذر كان أبو حلو قبت بداية معناها النظافة اللي قد دالو فرح أول الدقة وحن كل النظافة اللي قد بداية بس أنا وحولها بالسنة معه حوله إنه حنون ملك فيروس كان الطبيب ملك داوي حنون ملك داوي الدكتور ملك ويلي قف طالع داوي يسموه هلين يا marka aaba maadaama waxaanu kan saa u dhigan yahay inaan inagu waxaan ka digtoonaana qofkii noo yimaada ee aanad gareyn horta farxal iyo biyasi hana salaamin xaqaana waan ugu soo farxay halka ugu soo faray in xaafada bay naga soo gelin marka aad u farxashid eed hubisid inuu farxashay kadib marka xaafada ugu soo daa wixii inta ka baxsan inagu shaqo ku meelin magaalada saasay naga xiran tahay miiga hadana waxa shaqada dumarka inay islaan walna inay islaan magaalo tagin magaalana ayna cuduga iman magaalana inaan cuduga iman cidii uga timaada mobile bajire hal lagu joojiyo halkaas oo hal inta xanuunkaas baxayo magaalada iska jooga lagu dhaaf qofkii magaalada nooga imanaya waxa weeyaan maanta kaliya wax ku badbaadinaa nadaafad iyo magaalada iska digno وعطينا قروقيا قروقيا wax kale u baahanay aanina kaayi waan ka baxay xaaj kaayaha ka bax haddii hagbad ku jirto hagbad halka ku xid xaalad xun baa dhacday maadaama xaalada xun dhacday dadkana ku baraaruj inta aan gaaraan eegan bulshada u sheegi adna intii ku soo gaadha maadaama odayga macnaha taanteeda tahay marwey suudaanka adiguna igala hawlgal inta kalena gaarsi ololehna waa inaynu magaalada iska ilaalino waxayna isku filaysiino wixii dumarahay wixii maanta adii kaba loo baahdo inaga tolanayna hidiya dhaqankeennii hore oo kaliya ayaan ku badbaadana marka hidiya dhaqankeennii baa lagu faraadkaan waxaan ku kabiyan tolanayna waan tolanaynaa wax kasta oo awal sameeyay fandaalka waynu qoranaynaa xeerada waan sameysanaynaa magaalo ka maarankeeda u baan ka badbaadana waxaan ku weydiiyay oo caruurtu kaba haday kaba ka go'aan oo dharku ka dhamaado xagee loo doon
هدان مقالدي اللي قلي لحظة ديلا ما أنت دودي ما تهرج سو ما درك كاسن كتولنا كاسن كتولنا معنا كبه ها سان حنون كم قبض سان حنون كم قبض بعدنا لحظة ديلا لهرج دون يبقيني يا يبقيني كبين كتولنا مرحبا حاج مرحبا يدون بالقدر يا قيب لا شيء حيا قيب عقل قدر جبا مركا كاسن عسنا مركا وحبا مقالدي بس أفر يصدق بالقهوة يرجع واحد يدا نقول إنه كمان يارض مطبخ قلب الدشاهي سوقال وان صح هذا به نابل بيا سوى عبي هو مقالة تكتب أنت وصو عرق وراه وصو بليني أنا مرة تدوعي قلتي نصيصي أنا ضمر كصاحب بدأ يحافظها يوم بام حنقول يعني وعي قلت تصديني ما واصل أنا قام بحياة وحسقوي يا قضية باشا شربان قلنا هذا يقول عيد قلت ما دوعي قلنا تاسي إيه أنا وندقة هذا قضية فرق حسقوي يا شركة سنقلنا هي حي واصل سنسكونا هي الله بسم الله الرحمن وين المقالة ما تير كلا بالإسلامتي هو يدي وحير المقالة يكون صحيح كثير هو يو كورنوي خير هو هذا سموك عافيمان ما شاء الله تاتاي خير هو يو في عنا واحد يقول مقالة دي بنت جيو حنو يرباهنا وحير وصحيح كديك توصي قاتل ومحط كدوين مقالة هو يو مقالة الجاري يعني وبرحق أصلا غير يعني مقالة صوت اللي لما قلبي ومحط مي واحد المقالة دي ميجي ما يمكن ميجي المقالة دي ما تكفى ويا واحد سودتي waxaan ku ma soo dhaamsay hooyo hooyo waad waraabin doontaa iyo ducaqabe hooyo inta dad ugu leedahay magaalada babaxaya sida inanka maxaa ku diiday hooyo kanun baad adigu horta wala taamaanadan ii dhalin hooyo maya bal xilliga soo toostay leedahay magaaladii baan tagayaa ka war hooyo magaalada tagayaa aanu sida kan meehiye kan naga daalaqa waxaan u sanayaa kaliya ani ilaha ma xanuunsanaya waa waali adeec weeya hay adigu taad iyo sigaar un baad eryanay abaar bay ku dhacay una tabasaan yeela halkeen ka tabiiba hooyo tabiib aabaha waxaan ku dhaafaa magaaladii كودتي إمك وعي قلنا بوضع واحد يدي مقالة عليك مثلاً حاجة منو حسوق جلسين ده حاجينا كاجلا ما بأفكرنا يبا مقالة أنت يا أبو يا بابا وعي قلنا وده واحد يدي سكمة طلاب يبا أبو محاضر بس الحين بعض فرص هاي أبو مقالة دي بيجي تجيو والهوية الإسلام وحيرة والخسي قادم مقالة ده كتير وأبو مرة دوجين مقالة إن كلا جوعية وحن كوري وده حرنت هاي ما دوجين ويا كلا جوية وحنون بعد عيو سبيل لو بدادي لها أنا بعنا كل حاجة صنع أديكي أنت في أنا أديكي أنا واحد مقالة تروح عرصة أضينا سلطانة أنا جينا بيشي بوعي قلنا ياي أبو سال لقى ربنا تنا قال كي بانو وعي قلنا تقبل عبد يا بانو مقالة ده أساس كتير يا ماشي بتشوي كريه كاسة كذا عاد علمها كذا عاد ما قلوية كذا عاد يا كريم بريجي بوقي شو حنقولين كارت ما يقعد عليه هدي هاد ماشي كويس كهذا القلو halka waxaan ku ri karaayada ka dhacdaa ma ubad kunba ku dhacdaa ama adduunka kana iga dhacay karaayadii maxay kaaga dhici kanba waa weerada daaco kan noo shaqaynaya kan waa khayr qaba kani aabo waxma ku sheega ee iga qabsayna ka ma xukumi karayo iga qabs taagii sigaar biigu wareeriyay kan meel adaqaban iyaan ku geyniyay kana rid baan u geeyay meel saaraya aabo lama kari karayo abe gurigood buu baahan yahay daasoo lowd kamera soo qaaday lowdka wada أيام أبو شاطر أنا ماري كعصم أنا محمد وحمو علي فإنا أيام عرسة أبغى إذا خير بيجله أصبح يا إخوة إن كان يدير جاري أنا هالكابي كسر دامينه إن كان بمقنايو كتير يدير جاري بيجا قبضه وردين أنت دوري أبو وبالشو أنا لا أبو محاين نتقاسية يا بكوا بنك حاجة تجيبوا مقالة دي عشان نسكت تجي وعكت ما بتسيان مسوي شيء كده والله محمد موكاني اللي ما تجي محمد موكاني سا واركك هذا قولك كع ورحان هواك قوي إيجاك حيسو مساعدي لكن سكون لو قاي أبغى نور بمقاسي نور أبو مقاسي نور أبو دامنا دي قالوا أصبح نور أبو هبار بوق أباكن جادي سجار مصاوضة كذا كن سكون لو قاي ما وحن جادي سجار لكن هاي مدى دام وعيقلوا كجرنو كن مجانا ما قال كانوا تذكر دمني هرا أبيون حنونك حاجي نوعين كل ما وراك وأنا حياين كساعد بافو سلام ما فن كرنا قلت لك يا وكل أيماني بقولي وكل حد قويس كاب وحيو لأن كاكلي قويس كرونا قويس كرونا كان كان علي مر الله ما فكر عيون وريرا صدق أنا على ريدك عشان فجأني يعني جيت كا قرآن كلام يوم قرآن كذا أنا أبوي قاعد معنا وأنا حري جيت كا قرآن كلام أنا صاحري أي يقص صاحر حاجة ما أنت هنا حبسانة صاحب والله إلا حد من حبسانة ما أنت
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة في عنك الله. ما في عنك. إلهي مهدي. عاني ما لقاض. عانه. ما يلا ما قاعد عاني. ساقط كده عاقدان كلكم نوايا. لا مر باجرتا. waxa yimid xanuun dibadaha iyo adduunweynahiiba ka yaabiyay marka waxa la yiri qofka miyiga jooga ayuu magaalada tegay ka magaalada joogana inuu miyiga tegay waayo maxaa loo suldaankii waxaan ku wacyigelin ku maqan yahay odaygayagii Soomaad garan marka waaniga caanihii halka ciyaalku dhigay ee lulaya kala ciirtay abi kala garowgan ugu shubi kala suuradaan u karin Soomaad garan dahan gartay dhageyso ilaan caanaha bilaash umeynaan gayn jirin suuqii waxaan u geysan jirnay lacag ka helna Soomaaliya aan dalaga ku soo iibsan marka lacagta ka laga helay dhaqaalada waxay xanuun ka daran baaba yimid lacagtii iyo sonkortan hadu ooyso oo markaan waad caanahaagana cabi oo waad ka haysan reerka midna ku dhaadaan caaniin hada haysan haysta laakiin aanu kayga suuqida ma ku ama amirtan anagu baanu qaadanay inaad qaado waxaan ku diidayaa caanaha wala masaariif iga soo gashay waxaad garatay ma iyana waan leeyahay marka masaariifta iga soo galaysa meedinta ay siinay qorshaan la soo dejiyay anaga masaariif waanu qaadan jirno masaariifta yar waanu soo ridan jirnay laakiin xanuun baa yimid aan la isku baxaynin xanuunka waan gartay lacagtaadi halka baa lagu bishay qaadanaysaa igu dhe laakiin saano caanaga waxaan ka helayo walaalay ma deynayo lacag ba uma baahno markaynu caaniheena soo maalno aynu waxaan ku yiri garowgii karsano waxaan ku shuuradii karsano walaalo adagina xaafadii buu dhex fadhiyay aanana ciyaalkan iska siisanay waaba caadiye adu ma qaadatay maamay naag walayba ubadkaaga iyo odaygaaga iyo reerkaaga bisika intaad u qabato magaalada aynu ka maarano waan ka maarmaynaa qofkii naga taga xanuun buu soo qaadaya qofkii nooga yimaadana xanuun buu qaadaya marka waa inaan ku filaanaa ilaahay baa la aaminaada marka soo qaadaysaa aniga adoo fatay waan ku filaanaa waan qaadanaya caanaha igisana waa idin ka baxay walaal adoo maamirta ma qaadan sidoo xaafada adiis qatay ama noqotay walaal garlin baa noo barakeeyay saa maamirta saa u qaaday yaa walaal ayee walaal nana mari taasoo damboor bay keenay maanta الوطن لا إله إلا الله كنا وان ما أنتوا دني مدرتها تمدي حاج واحد يدير يعني لما جينا مقالة دي لما جينا ومحاد عمال عاني سوق هذا وانا سيدا واحد يدير محاري عذر يحباج لما جينا يقول مقالة دي نا عذر رجران ما إني إنه وحما من سنيني أنا أنت تدرك كسوق هذا ما المقال كنوج يسدود وريجني وحن شات كلمة نوسي بس لو الحرارة يسنيه ده حاجة حرارة لكن التركي واحد يريد لما جينا عذر بالغ سوق هذا المقالة دي نا مقالة جران ما إني ما واحد سميسا أرد منك روح النهاية النية استبردي روح النهاية النية والمحاري كل شغل هنا الحرارة الشو حتى واحد كل عانها أنت النوقة الرئيس سلطان كتسكتيسو نا أنت عانها قاعد أورد مجالات النوقيو بورجي نوس بورجي محد عانها وقادوي عانها محد قادوي والبلاد بدو سنة وبتشوق مال وبتشوقرتا محد قادوي عاني نعم محد قادوي دي والبصاحة على هذا بتشوقرتا ورا حلو دي يا عذر قرن ما وبتشوقرتا وروح معي وسلطانكو reeraha mun la leeyahay suldaanku istalo islaanteedina ma qaadacani ma qaadan marka waxa jiray war waxaan kurcigow amarka hadii qaadan weydo islaanta kaliga aafeeniye labada lugood ka jijib war waxaan bila eedabada aasaasan ugu dhufan amarkaaga qaado war sidee war xagee wax u dhacen waani qaado waxa ku kar laahay magaalka noogay war waxaas ma warba pastor ba tahay xanuun hada dadka aafeenaysa waa suldaan islaantiisa hadduu dili waayo xilmu dili amarkiisa qaato caanaha qaadade oo muxuu ku dilay xanuunka macnaha dadka la badbaadinay ku dilaya waa in caanaha qaadaa buuriga ay war hay xaaji saaba waxay xararaysan caanaha xagee geenaysa suuqi geeni suuqi soo xanuun laga helay qofkii tagaana waxa ku sumoobaya kay nooga imanay uu sumaysan yahay marka ninkani wuxuu macnaha ninka wala ganaaxaya gabadhana gardarro ku dilay adiguna waad ku daba jirtaa adiga la soo dhaantid waan xararaysan oo bal joog waa suldaan imka waxaad leedahay islaanta hadilno caanayna ku qadan baad leedahay oo islaanta ma gardarra lagu dilay islaanta amarkii bay qaadatay awaamirtii waxay qaadatay reerka lagu badbaadinayay markaas hadduu la qaadan waayo waan qabanana asaga suldaanow waxaan u maleynaa waxaad qandaraas ku qaadatay adiga qandaraas ku soo qaadatay wax war naftaada la badbaadinaya ma naftaada qandaraas ku qaadanaya may taasi ma noqonayso anagu magaaladii ma deynano magaaladii waan tagana caanahaygii shaadkayga waan iska soo qaadana
wixii waxaan ku rixita milixdii wixii aan u baahno waan taganaa taasina waa qalad ma jireen reerka gaar baa ka darta bartaga bax anu sida bartaga bax wariyahay waxaana saantada ku dilaysaa waa dantii carruurtaada waa dantii reerka waa dantii ummaddan idin la degan waa adiga dantaada hayo suldaan anu dantayda waan garanayay xaraarada un baa maalmahan iga hadliso de ma garanaysa ma qayiline marka intaas suun bay hayde hayo way iska dhamaani waxa la yiraahdaa fool timaado guda qarsiima hadhay haddii ay xanuun iyo aafa timaado xaraara way hadhay reerkan ana dhameeynaya xaaladiisa adiguna amarka ma jaban kartid bas intaas suun bay hayde xaraarada suun bay hayde bas reerkan nagu daa wax ma inaga bixi karo magaalada inaga tagi karo ma jiro wax inooga iman karaana ma jiro go'aanka reerku qaatay ka weeyaan bas waayay bas ninkii taayeeliyana waa la hadaamayn dabna loo doonan maayo dabna laga soo qaadan maayo wuu hadaamaysay ninkii go'aan ka qaadan waaya haye bas waayay sidaasaan isku ognahay intan aniga gudaana ka dhameyn haye waayay suldaan sidaasaan isku ognahay sayid aan sugnahay haye waran waxa ma joojina markiisa ma qaadan maaye waan isku filanaa aniga islaantayduba waan isku filanaa inta yarna waan isku iibsana waan iska tegi suuqa cidba uma baahninba amba amarka wada qaataan ba inay wada qaadanba wana islaantii Axmed noo reegto aniga cadaantii xidhay ee kuudidiyay bal soocar bal horan inta suuqiya حاجة فرصة حاجة كذا وردة معنا هالكن وانت واحد فول كراسي ولي جاب ودقي فول كذا وانت سبحة وش كراسي قبل أنا هنا حكيو هذا يقول إيش حكي قال كم تجي أمر كان صدقني وحن قاضن مينه إنه وينك أسكت فلان نمر وينك أسكت فلان وينك ما قلت صدقني شيء كذي ما هي بسم الله الرحمن الرحيم هدي أنو نهاي dadkii miyiga waxa aynu isugu nimid in aynu iska raaridno sidii xanuunkan daran ee macnaha afeen dilaacday aynu uga badbaadi lahayn aynu dadkeena u baraarujin lahayn nidaamka aynu isugu nimid waa ka shirkeenna wuxuu daaran yahay waa badbaadinta dadkeena weeyaan markaa Sheekh Cabdilaahi noo ducee shirka amiin amiin وريتكان كذلنا هي كان وذلنا هيبة إله النصر آمين كان وذلنا هي كان كذلنا آمين إله النصر آمين ذاك وش يجري إله يومبو عذرك صوص على ميجي يم قالوا دقها لو ذا تاجي الله ينجنا إلهي هنجنا بتجري آمين أنت الله وهينا الله وفضل ذي آمين وأنت الله كل هكذا القاو إننا إله هو اللي سوق بسم الله الرحمن الرحيم horta xanuunkan aan idinka warramo xogtiisa waxa weyn xanuunkani wuxuu ka dilaacay China waxa uu macnaha dareenkii ugu horeeyay laga qaaday China ahayd waxa uu sameeyay inuu dalbadal uga talaabo talawaan wuxuu ku talaabayaa waxa weeyaan waa safarka waa baabuurta waxa weeyaan diyaaradaha kadib xanuunkii wuxuu macnaha ku jira Yuruba hadda maanta Afrika soo galay maadaama ay magaalooyinkii ay soo noqday dadkeena miyiga waxa aan shirkeenu yahay inaan isku baraarujino dhibaatada xanuunkaas uu leeyahay iyo sida aynu iskaga badbaadin karnay aynu uga hortagi karno marka maadaama xanuunkii lambarka uu qofku hadii uu qof taabatid xanuunkii wata adna wad qaaday buug haduu horta taabto qof xanuunkaali oo taabatay adna wad qaaday maadaama ay wixii ilmo qabatay tahay waxa loo baahan yahay markasta oo macnaha dhan loo dhaqaaqo oo aad soo shaqaysid inaad gacmahaaga dhaqdid lacala hadii aad la kulantay meel virus ku taabtay dadaalka koobaad ee qaadanaa ka weeyaan fikir ahaan hadda waxaanu isweydiinanaa sidee baynu kaga badbaadi karnaa oo kaga hortagi karnaa maadaama aynu inagu dadkii miyiginahay oo ayna dhaqaatirin noo joogin oo aynaan maanta dadkaadeena qalab caafimaad la isku baadha una joogin nidaamkii aynu kaga hortaginay ayaynu isweydiinanaa oo ka tashananaa marka ra'yi baynu wareejinayna qof walba fikirka uu qabo in lagu badbaadin karo dadkeena meel kastana macnaha uqaasha oday dhaqameedka iyo meel kasta xil saaraya waxa loo baahan yahay inaynu reerkeena markaanu aynu xal isla dhigno inaan ka ku xiga u talawno inagu sida aynu u noqono maadaama dhaqaatiir jirin inagu halkii dhakhtarkan galan dadka wacyigelin sameeyno fikirkeena waan wareejinaynaa waxaan ku wareysinayaa Axmed oday Axmed marka anaga magaalada ka joogaan dadka adigu sultaankii dadkee waxa tahay miyiga u joogay ee bari adu magaalada waa tagaysaa oo kale ila sultaankii miyiga magaalada waa tagay adigu waa tagi doontaa adiga yaa ka joojinaya adiga anaga xukumay waa su'aal fiican
waxaa la xidhay malcaamadihii baa la xidhay madaraasadihii baa la xidhay isku imaatankii baa la xidhay macalaa golihii suldaanada ay ku kulmayeen magaaladu way xidhay oo tegi maysid golihii meesha lagu kulmayo waa la xidhay laba qof la kulmaya ma jiro su-aashaasi taasaan kaga jawaabayaa wixii fikir ra'yi qabtana waad soo jeedini anaga mar haddaad naga joojiso oonad adiguna tegaynin anaguna dee sisan kaga joogi mar haddaad tiri tegina idigu anaguna tegi maayo waa sax su-aasha aan qabaa waxa weeyaan macnaha aynu wareejinaynaa sidee baynu dadkeenna ku badbaadin karnaa maadaama aynaan dhakhaatiir lahayn oo aynu miyi joogno una farmasi halkiin laga soo qaataa una ku oolin sidee baan ku badbaadin karnaa ummadeennan remiyiga waxaynu ku badbaadin karnaa inagoo sideenii hore dee halkaa miyiga u joogna mar hadday tahay magaaladii yaan la tegin qur-aan baynu ka akhrisan halkaas maan ka taagnaa inaad magaalada u dhaadhici mayna noqonaysaa waa sax waa ra'yi fiican inaga ku xiga inoo wareeji ra'yiga waxaan kaga badbaadinaa maadaama hadduu ilaahay xanuunkan keenay goobaha ururka iyo isku taga ilaahayna inaga hayo waan gartay soco waxaan ku badbaadinaynaa tallaabada aad qaadeen ee au noo keenay caaqilku si fiican ayaan u qaadanay go-aankeega una fulinaynaa una hirgelinaynaa waxaan dadka ku sii baraarujinaa markaad adiguna soo gaadhsiisay waxaa mudnaanta leh reeraha kale ee bulshada ah ee miyiga degan sidii aad u gaadhsiin lahaydeen annaguna aan usii faafin lahayn aan usii gaadhsiin lahayn talooyinkaasi ayaan ku tallaabsanaynaa markaa waan gartay soco adeer amarkaad noola timaadeen waan qaadanay waanan ku ducay waxay ku fududuubinanku kuu celiyey suldaan kolkaad adigu tagto annagu si aan tegi weyno adiga yaa kaa joojinaya dhulkiida isugu yimidba wuu wada xidhan yahaad uga jawaabtay kol haddaan meel furan oo la tegaya aanay jirin ilaahayna haynaga badbaadiyo innaguna gelintaa aad noo keenteen waan idinla qaadanaynaa waan qaadanay saasaan kaga baxay bismillaahi raxmaani raxiim wadda waxalba ilaahay baa laga baryaa idinkana waad mahadsantihiin kol haddii idinka inta la socota iyo suldaankuba ayna soo gaarsiiyeen annaguna ummadda kale waan kusii faafinaynaa ilaahay baana ku boqonaa diinteennu baan aaminsanahay diintaan ka akhrisanayna oo qur-aanka kariimka ka akhrisanayna horta waanu idinka guddoonnay amaamiirtan caafimaad eed noola timaadeen si fiican ayaan idinka guddoonnay haddii aan ra'yigayga dhiibto horta badbaadiya waa ilaahay biniaadankuna waxay mudan yihiin inay isilaaliyaan hadda kadib meelaha kulanka badan tegi mayno magaaladana ku badan mayno oo tegi mayno xoolaha iyagaasaanu iska dhaqan garowgaa aanu leenahaanu iska cuni saasay ku dhammaatay bismillaahi raxmaan raxiim fikirkeennii waan wareejinay wixii dhibaatay xanuunkii waan isla garannay waxa weeyaan maanta laga bilaabo waxa aan samaynaynaa inaynaan magaalo tegin waan isla qaadannay inaynu faraxalka ku dadaalna waan isla qaadannay waxa weeyaan in yaroo mushkulada jirta innagu wada fikir baan noqonnay laakiin in yar baa jirta ninka gurac laydhaa iyo saanta kuudadya laydhaa qoyskaasi waa ay diideen inay magaalada daayaan awaamiirta inay qaataanna waa ay diideen waxa weeyaan markaa taladeennii intaa yar baa ku dhex jirta dhammaan reerku si fiican buu iskula qaata arrinka markaa ninkaa macnaa gurac wixii aan ka yeeli lahayn ayaa meesha taalla maanta in aynu ka wada hadallo qoyskaa reer gurac inay muddo 15 cisho ah inay naga takoornaadaan oo saa inooga xidhnaadaan fikirkaasa soo jeedinayahay idinkana bal fikirkiina soo jeediya ay naga takoornaadaan oo ay naga xidhnaadaan ma ay naga takoornaadaan naga mid maaha qoyska waynaga inagu raashinkeena yara iska soo iibsanay iska soo qaadanay saahideena yarana iska wadan dawa kaas isagu waxa naga qaado maanta cudur miyaad ogtahay odaga suldaanka miyaad ogtahay wasiirada caawiya lacag waa daf ila raashinka gurigiisu buuxaa inaga inta isagii islaantiisu way soo yihiin waxa ka daran masaakiinta yar amarkiisa qaadanay gaasho baqsiin Allah kuwaas ugu daran imika inaga aad soo qaadanay alaabti alxamdulillah inaga inoo alxamdulillah rabbil alamin waxaas ku mararsanay ka hor gurigeena aaya inaga laga qabna in iska tagay cudur buka bixilaayo cudurka da ilaahay baa la aaminayay ilaahay baa la aaminayay hor ayaa kudaydiyay ebel raaxankaaga yar qaado ka qaad meesha
waryahe saadkii maalad noo keenin war waa noo keene bal intan qaad war waxaan suldaanku sheegayana maxay ahay والله مرمت كمان سأوسك هلا يا عم قبضتين بدون إنه نقص معي والله ما بحو والله عم قبضتين هذا الشيء كيسن ما بحو waxa hoogay ninkaan haysanin wax dabiici ah oo dalkiisa ka soo baxayo maanta ku filan ninkaan haysanin inaga warshadan waa gacanteena dibigeena inoo haya dibigeena ayaa inoo haya gacanta u tanada noqda gacanteena gudintiina waan qoraynaa waxaynu uga baahanaa ma jirto warshadii wax soo saaraysa waa inaga warshadnimadeena soo ceshano aan aamino waxaanu xanuuna la sheegan maba jirayn ba sana awgeedan ka soo gaadhay waxaanu xanuun ma jirayn xanuunadan waxa keenaya waxyaalahan warshadaysan ee dheyd kale shayga dheydka markuu leeyahay waxa ku leeyahay waa lagu dhimanaya shayga shalay daba sameeyeen ayaa dheydba ka dhac waa lagu dhimanaya halka waxa ka cadma inuu sheegana shay sumaysan baaha maanta kanu been bedelanaa mar gurubaan ka dhiganaa mar shuuraynu ka dhigi mar kars baynu ka dhigi mar laxoox baan ka dhiganaa marba nooca aynu doono baynu keena u bedelanaa wax alla waxaan uga baahanaa ma jirto malqaacadaana waan bedelanaa waxaanu fandaalkii baynu qorananaa kana fijaan kana noqoto xeedhaday baynu samaysani waxa weeyaan maanta dadka magaaladu waxa sheeganayaan dhiikar macaan bay sheeganayaan inta oo xanuun oo aan miyiga lagu hayn ay sheeganayaan maadaama aynu inagu miyigii nahay ma cunno wax maanta moorsan ma cunno wax warshadaysan maadaama ay sidaa tahay magaalada cabashadii magaalada intaas oo xanuun waxa keenay waxa weeyaan cuntooyinka aan dabiiciga ahayn maanta inaga manin waxa jira macaan loo macaan laga baadhay manin dhiikar la jira maadaama ay sidaa tahay xanuunkuba wuxuu ka soo baxaya waa magaalada weliba haddaan qiyaaso waxaan malaynayaa nimankan dhakhaatiirtan hore u maray ayaa sameynaya warshad xanuunka sameeya alaabahan moorsan buu xanuun ku jiraa kadib xanuunkaas markuu galana dawadii baa ka soconaysa marka dad baa dawada inagu socodsiinayeen keena aan socodsiinaysa aan uga baxno xanuunka dad baa beeraya mashruuc macnaha la wato weeyaan oo lacag lagu rabo marka mashruuciga inaga la naga furan magaala laga furto la baadhay inagu keenahan aamino sidaa weyn xaaladeenu waan ku raacno caafimaad qabkaan raacno waa saa weyn واحد كيتاكم ما نقول ما قبل الشريعة قبل تستاك قبل خالي ومحل يدي قبل هذا من إلى هاللمبة وبدر محل يدي وبتشاك والمحل حتى محل يدي وأمس وورا والمحل يدي شركم حوا ما نقول ما قبل الشريعة وبخل هذا يرى هذا شركم واربان خيا وعسل شركم وبتستاك شركم حوا وبخالي وشركم حوا سلطان إلهي قرني ما هذا هاي أنا قام مقصر الله شريا نادتك كذا والله يساوم بأفكار خوصة وذا قاسم تي مدة متجي من حسيران كوري حتى مصينا يمين تعالى الملح هذا كتالو كسية يا هي كوتا وتشيلان كسوية كل هذا اللي يسوي لي كلام بتسلم سكدي فاضل دار تبغى تبغى من حدك ما بصينا يا بيت إن السودان كمان ما حاجة دمبية إيه كده والله ديجان في حاجة هنا حلنا حلكم سلام وقت شيء أيها كود يا إلهي كود إلهي كود ما نقبته وحاول كود هنا قبضه ما نقبته قبضه السلام عليكم. السلام. سلطان. حولها وحي واجب لولا هاي أماميرتي أدنى فرتي حولها سيدة أيام وغصوا بحناي عدي هذا ويدنا وعد قال جالسين يا وتاب هالشيء. وكسب حيوات في عنتها إني والبانا كيف كانوا إنه خاصان لنا
ninka macnaha maanta ay gaajo u dilayso ama macnaha ka cabsanaya dhibaato waa nimaan kayd lahayn innaga kaydkeennu waa kaa ninka raashinkiisa soo dhoofayo kaasay dhib haysata innaga laakiin dhibinama haysato waa inaynu kaydkeenna iyo raashinkeenna ilaashanno cudurkuna cidda wax u soo dhoofaya waa cudur diyaarad saaran innaga diyaarada nooma timaado innagu yaynaanu tegin markaa garowgeenna kaydkeenna inoo ilaaliya wax kale oo dhibaatay nooma imanayso dadka maanta cabsidu haysaa waa dadka raashinkooda iyo kaydkooduba uu yahay dubay innaga dubay kayd nooma yaallo duleedka beerteennu kaydka noo yaallaa markaa kaydkeenna duleedka yaalla waa inaynu ku adkaanno waa inaynu xafidanno waa sidaa maxamed oo kale in qof walba uu hagaajisto nin walbana waxaa la hubinayaa bohoshiisa inuu kaydkii ilaahayna siiyey inuu yaallo ninkii aan kaydkaa lahaynin baahiba qasab u baahidu qaban waxaan ku magaalo geli markaa intana kaydka haysano magaalo uma baahnin hawsheennu kaydkanu kaa weeyaan markaa cudurku wuu soo dhoofayaaye wixii soo dhoofaya innaga xidh innaga saasaan isku ognahay